qisadeenu maanta waxa ay ku saabsan tahay nebi ka mid ah nebiyadii faraha badnaa ee loo soo diray reer banu Israa'iil. Waa nebi Xasqiil calayhi salaam. Waxaa jirta xigmad uu Eebbe uga gol lahaa soo diridda nebiyada badan ee loo soo diray reer banu Israa'iil. Alle waxa uu sheegay in uu xilligaasi ka fadilay caalamiinta intooda kale. Laakiin reer banu Israa'iil waxa ay ku adkaysteen dulmigooda iyo xadgudubyadii ay ku dhaqmayeen. Karaamaynta uu Eebbe karaameeyay waxba kama soo qaadin aan ka ahayn in ay ku kibreen oo ay isla weyni muujiyeen. In nebiyo badan loo soo diro ayaa lagama maarmaan ahayd si loo hagaajiyo dhaqankooda isla markaana loogu duwo jidka toosan ee hanuunka. Laakiin nasiib darro, reer banu Israa'iil kibir iyo xadgudub heer ay ka gaareen waxa ay dileen qaar ka mid ah nebiyadii loo soo diray. haddii aan u soo laabanno qisadeena maanta oo diiradda saaraysa taariikhda nebi Xasqiil ibnu Buudiya calayhi salaam iyo qoomkii inta ay geeriyoodeen dib loo soo nooleeyay. Alle ayaa nebi Xasqiil u soo diray reer banu Israa'iil si uu xaqa u gaarsiiyo una sheego in ay Alle keligiisii caabudaan oo aysan wax kalena cibaadada la wadaajin. Laakiin maxaa kala qabsaday nebi Xasqiil iyo qoomkiisii reer banu Israa'iil? sidaysa uga falceliyeen fariintii xagga Eebbe uu uga waday? Masiirkiisu ma waxa uu ku dambeeyay halkii ay ku dambeeyeen nebiyadii ay reer banu Israa'iil la dagaaleen? Mase sidaas si ka duwan ayaa loo qaabilay? Maxay ahayd sheekada ku saabsan jamaacadii inta la dilay haddana dib loo soo nooleeyay? Maxay culimmadu ka warisay dhacdadaas? Warbixintan ayaanu ku faahfaahinaynaa ee nala soco. Xasqiil ibnu Buudiy waxaa reer banu Israa'iil loo soo diray ka hor inta aan la soo dirin nebi Yasac ibnu Yakhduub calayhi salaam. Reer banu Israa'iil markii ay galeen dhulka barakaysan ee Kancaan, waa meesha hadda loo yaqaano dhulka Falastiin, waxa ay u qaybsanaayeen 12 sibdi ama qabiil. Asbaad waa wiilashii Sayyiduna Yacquub calayhi salaam. 12kaasi asbaad ama qabiil mid waliba waxa uu lahaa hogaamiye ay isku qabiil yihiin iyo wadaad si guud ugu taliya. wadaadku waxa uu ka imaan jiray hal qabiil kaliya, kaasoo ahaa qabiilka reer Laawi. waa sida ay hadda Soomaalidu tahay oo kale. qofka ugaaska, suldaanka, malaaqa, beeldaajaha iyo wixii la midka ah oo hal laf oo kaliya uga yimaado marka qabiilka dhexdiisii la joogo, ayay iyaguna qofkaasi wadaadka ihi uu uga soo dhexbixi jiray qabiilka Laawiga la yiraahdo. Xasqiil bin Buudina waxa uu ka mid ahaa qabiilkaasi Laawi ku abtirsada sibdiyiinta oo ah tafiirtii Nabi Yacquub calayhi salaam. sidaas darteed tolkiis ayuu wadaad u ahaa ka hor inta aan nebinimada loo soo saarin. waxaana la sheegaa in Nabi Xasqiil uu ku barbaaray isla markaana ku noolaa magaalada Dowrdaan. Xasqiil ibnu Buudiy waxaa lagu naanaysi jiray ina waayeel. sababtuna waxa ay ahayd hooyadiisii ayaa Allah weydiisatay in uu ku arsaaqo awlaad baari ah. ayada oo gabowday, waayeel noqotay oo dhalma goys ah ayuu Alle u hibeeyay wiil oo ay sidaasi ku dhashay Xasqiil. Imaamul Islaam Maxamed ibnu Isxaaq waxa uu yiri Xasqiil ibnu Buudiy waxa uu nabi u noqday reer banu Israa'iil kadib markii uu geeriyooday Nabi Yuushac bin Nuun calayhi salaam. Xasqiil calayhi salaam waxa uu hoggaan u noqday reer banu Israa'iil kadib markii uu booskaasi hoggaannimada ka baxay oo uu geeriyooday ninkii saalixa ahaa ee lagu magacaabi jiray Kaalib bin Yoofana oo ka mid ahaa raggii sida aadka ah ugu dhawaa Nabi Muuse calayhi salaam. Ibnu Jariir waxa uu yiri ninkaasi gadaashiisii, yacni Kaalib ibnu Yoofana ka bacdi, waxaa xilka reer banu Israa'iil qabtay waa xilka hogaamiyanimo Xasqiil ibnu Buudiy calayhi salaam oo buuxiyay booskii wadaadnimada oo ka dhigan in uu hogaamiyo u wada yahay dhammaan qabaa'ilka reer banu Israa'iil. mucjisooyinkii uu Alle siiyay Nabi Xasqiil calayhi salaam waxaa ka mid ah sida uu warinayo Imaam ibnu Isxaaq, jamaaco reer banu Israa'iil ka tirsanayd ayaa ka qaxday cudur safmar ahaa oo deegaankoodii ka dilaacay. waxay beegsadeen dhul iska bannaan, kadibna Alle ayaa oofsaday oo way wada geeriyoodeen. markii hore oo uu cudurku ku bilowday deegaanka, go'aanka ka bixitaanka magaalada way isku khilaafeen. labo ayayna u kala qaybsameen. qayb aad u yar ayaa go'aan ku gaartay in ay qadarta rumeeyaan oo magaalada isaga nagaadaan, halka intii badnayd ay qaateen go'aan ah in ay geerida ka cararaan oo magaalada ka qaxaan. waxay rumaysnaayeen in geerida orod looga baxsan karo. intii carartay waxa ay beegsadeen magaalo kale oo la yiraahdo Waasit.
ayaga oo faraxsan oo dareensan in geeridii ay ka baxsadeen oo sidaasi ku nabad qabaan ayaa dhowr bilood kadib ay geeridu u timid oo dhammaantoodii nafta laga wada qaaday. waxaa la sheegaa iyaga oo waadiga Doordaan ku dhex jira ayaa laba malag uu midna xagga sare uga dhawaaqay kan kalena xagga hoose, sidaasna nafta looga qaaday. ayada oo waqti uu ka soo wareegay dhacdadaas ayaa waxaa meeshii soo maray nabi xasqiil calayhi salaam. xoogaa ayuu istaagay isaga oo tacajubsan, wuxuu jeclaystay in uu alle soo nooleeyo dadkaasi dhintay. alle ayuu ka baryay in uu nafta dib ugu soo celiyo. alle ayaa ducadii ka aqbalay nabi xasqiil. qoomkii oo dhan ayaa naftu ay hal mar ku soo wada noqotay oo sare joogsaday. waxay hal mar sida hal qof oo hal cod ku qaylinaya ay ku dhawaaqeen takbiirta Allahu akbar. dadkaas qisadooda alle waxa uu uga waramay aayadda 243 ee suuradda Al-Baqara. waxaa la sheegaa cudurka ay markii hore deegaankoodii uga qaxeen in uu ahaa xanuunka daacuunka, ayada oo la tusinayay in qadarta eebe cid ka baxsan karta aanu jirin. inta la dilay ayaa haddana dib loo soo nooleeyay awoodda iyo qadarta rabbi darteed. halkaas waxaa ku cad in qofka aadanaha ah uu arrimihiisii oo idil uu alle u tala saarto, wixii uu eebbe qadarana uu ku qanco oo uu raali ku noqdo. ibnu Cabbaas waxa uu sheegay in dadkaasi tiradoodii ay qiyaas ahaan ahayd 4,000 oo ruux ama 8,000 oo ruux, haddii kalena ayuu yiri waxa ay ahaayeen 9,000 oo ruux. hase yeeshee qoraalada qaar ee qisadan ka waramaya waxa ay tibaaxayaan in dadkaas tiradoodu ay ahayd 35,000 oo ruux. wahab ibnu Manbah iyo ibnu Maalik waxa ay qabaan in tirada dadkaasu ay ahayd 30,000 oo qof. si kastaba dadkan marka dib loo nooleeyay ayay deegaankoodii ku noqdeen oo halkoodii nolosha ka ambaqaadeen. nabi xasqiilna waxa uu u taagnaa in uu qoomka ugu yeero cibaadada alle ayada oo aan wax kale lala wadaajinayn. nasiib darro, dadkaasi xaqa loogu yeerayay dhammaantood ma wada rumaynin. in yar oo kooban ayaa raacday oo ogolaatay jidka toosan. lama hubo muddadii nabi xasqiil calayhi salaam uu noolaa, laakiin markii uu geeriyooday ayaa in badan oo reer banu Israa'iil ah oo markii hore taabacsanaa ay leexdeen oo xaqii ka weecdeen. dhacdooyin badan oo aad u foolxunna ku kaceen. qisada dadkaasi dib loo soo nooleeyay ku saabsan waxaanu ka fahmaynaa awoodda iyo xigmadda eebbe. alle keligiisii ayaa kari kara in uu wax nooleeyo waxna dilo haddana dib u soo nooleeyo. sidoo kale qisadu waxa ayna baraysaa in dhimashadu ay tahay qadar rabbi oo aan qofna loo soo hormarinayn waqtiga loo dhigay, lagana dib dhigayn isla waqtigaas. intaas ayaynu kusoo gunaanadeennaa qisadii nabi xasqiil bin Buudiya calayhi salaam iyo qoomkiisii oo inta la dilay haddana dib loo soo nooleeyay. dabcan waa qiso tusaale mudan oo cibro qaadasho leh. tan iyo muuqaalka xiga oo aanu soo diyaarin doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. amaana allah. halkan waa Itaal Media.